libaaxani waxa uu joogaa goob uu ku caajisay oo ku taalla beerta xayawaanka ee Kaabul. marka ay ka xeroodaan qabowga waxa ay ku nool yihiin meel xiran oo kulul oo gaar ah. xayawaanka oo dhami way u baahan yihiin maxaa yeelay Kaabul waa qabow iyo dhaxan. xayawaankani ma kala jecla qabowga laakiin waxa ay jecel yihiin cunto kulul si ay dirrimaad u siiso. kuwani waa cuntooyinka Afghanistan. waxay isugu jiraan bariis, hilib, karooto, baradho iyo basbaas kuwaas oo cunto si gaar ah la isugu daray si loo siiyo xayawaanka. waxaa jiro tiro ka badan 42 cuntooyin kala duwan oo joogto loo sameeyo kuwaas oo ay ku jiraan qudaar iyo miro, badar, digir iyo miro kala duwan, macmacaan iyo shidni laga sameeyay timir, tuun, basbaas iyo malaba. waxaa lagu daraa qudaar badan. dadaal bani aadam ayaa waxa cuntadaasi loogu sameeyaa 600 oo xayawaan. si taxadar leh ayaa loo qiyaasay xayawaan walba cuntadiisa. shaqaaluhu waxa ay garanayaan xaddiga saxda ah ay u baahan yihiin iyo waqtiga ay u baahan yihiin. in la xanaaneeyo xayawaanka waa ay dhib badan tahay maadaama bini aadam ahaan aynu u diyaar garowno xilliga qaboobaha. sidaas si la mid ah waa in aynu u diyaar garownaa xayawaankana. xayawaan kasta ahina ma cuno qudradan ayaa lagu quudiyaa xayntan daanyeerka ah. waxa ay jecel yihiin bataati la kariyey waxaana ay ku qabsan karaan gacmahooda. xayawaankani sanka ayuu la raacayaa cuntada kadibna waxa uu kala baxayaa hilibkii ku dhex jiray. habka ay wax u cunaan waa mid xiiso badan in la daawado. 2500 oo qof ayaa maalin walba u soo booqasho tago. qaar badan ayaa ka soo safra meelo fogfog oo magaalada ka baxsan si ay u bartaan xayawaanka ka kala yimid dunida oo dhan. xasiloonida iyo ammaanku mar walba ma aha hubanti. sidaas daraaddeed beerta xayawaanka ayaa waxa ay ka caawisaa dadka inay ka nastaan oo ay waqti iloobaan dhibaatada iyo dagaalka. marka laga yimaado ammaan darrada, shaqaalaha halkani waxa waajib ku ah inay hubiyaan in xooluhu ay ka badbaadaan cimilada adag.